وقصة أم عن قصة يوسف. هل عنوان ما كسو قادم وحق الله قرآن كان لقول شيء قصة يوسف. قصة يوسف موضع دقوها مودسة لن يروها. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك وإن كنت من قبله لمن الغافلين. يوسف قرآن وقصة أم عن قصة يوسف. هل عنوان ما كسو قادم يوسف عليه السلام ولا له ويحسدين عيل بيكون ردين لما سفر عيل كنتي صومرين بيبيا كدا صدا استرادين يوسف باكا سو بخاي way qaadano عزيز مصر بقركي مصر bay ka iibiyeen fatarabba wa tara'ra fi qasr malik waxa uu ku barbaaray nabi yusuf boqor qasrigiisu ku dhex barbaaray quruxda aadam awlaadiisa ilaahay uu qadarayna kala badba nabi yusuf la siiyay kala barkii kalena bani aadamka adduunyada ku nool oo dhan loo qeybiyay bal intuu nabiga qurux leeyahay marka kala barkii kale ayaa bani aadamka kala loo qeybiyay mid sankay kaga dhacday mid indhahay kaga dhacday mid foormigay kaga dhacday soo ma hinde soo salaama mid hadalkay kaga dhacday qaar ba hadal qurux badan hadal macaan dhagaxay kaga dhacday ninba meel buu ku qurux badan yahay ولكن يوسف عليه السلام حاضر ملاينيسا شطر الجمال آدم أولادي سقروح دي لهاي وقدري بالليلي كلبان انت الله سوق عليه النبي يوسف لا لك كلي مركز وليبا كبر باري بقر غريغيس نكا دلنيرada ee la yiri quruxdii bani aadamka loogu tala galay kala badba kaliga lagu deeqoon la siiyay naagta ninka la kulantay aragta maxay soo oranaysaa war maxay soo oranaysaa ka soo naabay soo oranaysaa inuu ku dhaafin ya salaam boqorkii haweenaydiisii boqoradii marwadii boqorka ayaa mar alle markay Yusuf way diranaysaa la waa qulaamkayga waa adoonkeedii ayaa ka gato iibsaday socodkiisa la yaabtaa suuradiisa la yaabtaa gacmihiisa la yaabtaa formigiisa la yaabtaa sijeedkiisa la yaabtaa soojeedkiisa la yaabtaa waxay tiri wallahi kan inuu ku dhaafin يا سلام يا سلام لكن waxay ka warqabin shakhsigan shakhsi caadi maaha waa shakhsi ilaahay ilaalsanaya weeyaan xil boqorku uu ku maqan yahay socdaal ayay albaabadii oo dhan soo xidhatay boqorada daa'iman gabdha ag jooga u khidmeeya ragna aqalka ilaaliya dhinac walba ciidan baa ka taagan ragii ciidankiina waxay tiri dibadda banaanka ka ilaaliya guriga